Suldaan Ibraahim Qaxwo waa da' balse weli waxa uu aruurinayaa gacantana ku hayaa hiddaha iyo dhaqankii hore ee Soomaalida. Waxaan kula kulmay meheradiisa ganacsi oo ku taala magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. waxaa dhacday in aan shaqadii aan waayo banal biitarkana alaabta amba shaqada banal batlimiriga shaqo badan matoor iyo adduun badan ay u baahantay marka lacagna ma haynin dadka markaas aada loo xoogaa marka dhibaatooyin oo jirsan foob dadka dhan marka waxaan door biday in caruurteed aan u shaqeysto markaas waxaan magaalada xaafadda markaan imaaday ee Avenue Soomaalida oo dhan businesskeedu meesha u badan yahay meefaya markii imaaday waxaan arkay waan fikiray maxaa ku soo kordhin kartaa meefe markaas waxaan bilaabay qaxwo inaan kariyo iyo sinjibiil amba shaah sinjibiisha oo shaah lagu sameeyo ginger la yiraahdo taasan ku bilaabay markii qaar ah taa igu qosli jiray ay dhijina war qaxwaha guriga lagu kariyo qaxwo banaanka lagu gadaa maxaa marka anigana waxa ka bartay waxa waay Tanzania joog jiray dad qaxwo wareejiya jiro marka qaxwadii aan la wareegaa sidee marka magacii Ibraahim Qaxwo sidii ugu baxday Suldaan Qaxwo sidaan arkayaba dukaankaaga ama meheradaada ee yarta aan hadda dhax fadhino waxaad aad ugu taxday alaabaha hiddaha dhaqanka baxal labada soo qabta kan waa raadiyaan filaya kan raadi la dhageysan keel jiraha dhageysan jiray way kurbantii oo bunka tan feenustii oo wadinga la shidan jiray waqtigii hore iyo way hore waa Soomaalidu iska badan yahay caanaha yarka dhil ee waxa waayeen gaaw yar way amba ameel yar oo caanaha gaaw la yiraahdo kana fandal way sorta lagu cuni jiray subagii cuni jiray waxaas marka waxaan u keenay waxa waay ugu suurta gashay marka ina waxaan dhan isku soo aruurisay sida aan arkayo laba shay saddex shay waxa taala wax in ka badan 300 shay ha 300 waa soo aruuriyay waxaan bilaabay 2000 markii hore waxaan jeclaan jiray hiddaha dhaqanka markaan Soomaaliya joogtay hiddaha dhaqanka waan jeclaan jiray aan alaabtan aruuriyo hadda anaga sanad kasta waxaan service sameeyaa waxaan aan caawiyaa ambo aan siiyaa ilaa iyo 400 arday ay imaado oo alaabtan qaato wadankan waa laga xiiseeyaa hiddaha dhaqanka kuulul marooyin arday Soomaaliya iskoolaadka Soomaalida iyo iskoolaadka Hindida ambo dadkan wadanka localka waxa imaadaan arday ka badan ilaa 400 wax gaar aniga waxa igu suurta gashay waqti badan aan galiyay dadka Soomaaliya aadayaan aan u dirsadaa qaarna hadiyad ahaan igu keenaan qaarna waxay igu keenay way soo iibiyaan lacagtii celiiliin qaarna waxba isaarsadaan marbasi badanaa waliba marka waxa ka goon adig inaad isku aruurisid waxa iga goon isku hadda ta jaamacada imaado ardayda jaamacada la keena research wax la yiraahdo wali weydiya shahaadooyin badan ku soo qaatay waxaan ka qayb galnaa hiddaha dhaqanka oo wadanka wax laga jecel hiddaha dhaqanka aad loo jecel Suldaan Qaxwo marka farsamadan hadda shaaha aad iyo qaxwada iyo waxaanaad karinayso sidee ku baratay wallahi wax walba dhibta ku barto markaan aniga brochure-keeda waa saan ku sheegay nin rinjiilaanay amba nin batlamiri Soomaali batlamiri wadankan wax la yiraahdo banal biitar markii ay dhibta dhacday ayaan soo noqday inkastoo anaga wadankii aan ogeyn shaaha anaga aan karsan jirnay marka shaaha ana cabo shaahina magacyo badan uu leeyahay mid waxa la yiraahdaa dhaka jabi sida caanka ku ah marna wax maqlaysa marna wax maqlaysa dhaka jabi mar wax maqlaysa dirgax mar wax maqlaysa shaahan waxa la yiraahdaa dirgax la yiraahdaa bakiir dheer oo aad u dheer marka dirgax noogu dheer waliba spice iyo heel iyo qarfa iyo filfil aan sameynaa waxaan ugu talnay shaahan waxa sameynay شال يراد vaccine أجر وحلو مقعدري عربدي كورونا أنا أقوم مقعدرني وحنا أقوم مقعدرني ما دام كورونا وقت يدعي وحاجري جت وحلو بعد وحوده أم بسنجبيل أم بو معنا محيرة هيل يو وحلو بعد محل يجري وحياله كل سيدالين دنانته وعس مركز شاو عنكو دري فلفل يو سنجبيل بدن يو على بدن عنكو درني أو كورونا قف كمركو وجع سكاركو وحلا سينا اكثر سنجبيل ام باكثر هيل بدن على سينايا وفعوا نقونها سida adiga boo aragtay waa cabtaan malay dhowr jeer cabiha watana xilliga bacday soo dhow bakiriyaashina bakiriyaash kale waa ka bedelan bakiriya dhaadheer oo special ah oo magacyada ku kala bedelan yihiin flavor shaan uu kala bedelan yahay kulli isku nooc ma aha mid walba dadka waa loo sameeyaa mar walbana shaan ku soo kordhinaa shaahi noocyada Cabdirashiid Xuseen Karaash warbaahinta raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle xarunta Suldaan Qaxwo magaalada Johannesburg internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second
ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.